Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 25aad ee ka soo wareegtay aasaaskii Jaamacadda Muqdisho ayaa ku dheeraaday ka hadalka kaalinta muhiimka ah ee bahda waxbarashadu ku leeyihiin xasiloonida, nabadda, amniga iyo horumarinta bulshada. Jaamacadda Muqdisho oo la aasaasay sanadkii 1997 waxay ka mid tahay jaamacadii ugu horeeyay ee dalka laga hirgeliyay burburkii kadib, waxaana ka soo baxay aqoon-yahano dalka xilal sare ka soo qabtay iyo kuwa hadda ka haya. hambalyo ayaan leeyahay jaamacadda iyo madaxdeeda iyo ardaydeeda iyo bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogaanba hambalyo 25 guurada. runtii jaamacadda Muqdisho iyo jaamacadaha kale ee dalka ka jira waxaan ka codsanaynaa inay barbar istaagaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan oo haddeertaan gartay meesha laga jiro, oo haddeertaan gartay inaysan abeesooyin ku haysan karin caloosha oo aysan guryaha u fadhin karin. marka inay qayb weyn ay ka qaataan caqliga oo dhan halkan u yaala, qayb weyn oo hogaamineed iyo toosineed ayay leeyihiin inay ka qaataan ayaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. si guudna jaamacadaheenu inay focuska saaraan in culumta researchka iyo cilmi baarista xoogga la saaro. waxaan joognaa dhinaca dowladnimada meel fiican, hay-adaheenu way dhismayaan. waxaan rabnaa marka inay hay-adaha cilmi baarista iyo aqoontuna ay sidii hore ee ah in masalan cilmiga in la generate gareeyo cilmi iyo in haddana lasii generate gareeyo oo lasii waxbaro keliya aysan ahaane in problemka bulshada haysta sidii loo xalin lahaa in aada looga fikro. taasaa loo baahan yahay oo weliba bulshooyinku isku problem ma aha. waxaan u baahannahay cilmi baaris Soomaali aan u baahannahay si ay usoo baxdo findings Soomaali xal loogu helayo oo la dhihi karo waxay xal u yihiin mushkilada Soomaaliyeed ayadoo diinta iyo dhaqanka iyo cimilada iyo taariikhda la isku laaqayo. intaas waxaa soo baxaya markaa dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin, dawladda u baahan yihiin waa noocma. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ka mid ah ka qaybgalayaasha munaasabadda ayaa madaxda iyo aasaasiyaasha jaamacadda ku amaanay kaalinta ay ku bixiyeen dib u soo nooleynta waxbarashada sare ee dalka. jaamacaddu marka hore ay fikirto niman maskax yar ma alifin, maxaa yeelay magaca ay qaadeen aan basaalanayno markay jaamacadda Muqdisho u bixiyeen magaca kale aysan waqti badan ku dhiman oo caasimadda Soomaaliya magaceedii ay jaamacadda siiyeen maalintaasay u fikireenba. waana miro dhasha runtii, waana laga faa'iidaystaan leenahay, laakiin mas-uuliyada ka ratimayso runtii. Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha golaha aqalka sare oo isna dhinaciisa hambalyo u diray jaamacadda Muqdisho ayaa xusay xilli adag oo baahi waxbarasho sare oo baahsan ay dalka ka jirtay la hirgeliyay jaamacadda Muqdisho laguna faa'iiday oo ay muuqato mirihii ka soo baxay dadaalkii ay sameeyeen. sida waqtigaas xamar waa joognay 97 iyo xaaladeeda waan garanaynaa. duruufo adag iyo dhibaatooyin badan ayaa intaba jiray, oo sida haddaba ay labadaas duruufood inoo haystaan. markaas haddii rag baa u kacay oo u dhaqaaqay oo burburkii dowladdii Soomaaliyeed kadib jaamacaddii ugu horreysay ama tii labaad la aasaasay oo 25 kadib maanta aynu u dabaaldegaynaa. waxa weeye waxa ay tahay inaynu. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay inay laga maarmaan tahay in aqoon-yahanada inay qaataan doorkooda kaga aadan la dagaalanka fikirka xagjirka ah, dadaalada dib u xoreynta ee ay iska kaashanayaan shacabka iyo dowladda iyo gurmadka abaaraha. waxbarashada inayna ku istaagin, waxbarashadu inay solution la timaado mushkilada asaas. haddii cilmigu uu xal keeni waayo, cilmi qalalo meel iska fadhiyaay micno ma yeelanayo. cilmigan waa inuu amnigeena xaliyaa, waa inuu gaajada inaga xaliya iyo baahida hadda laga sheekeynayo duruufta inaga xaliyaa, waa in uu wadan dhisan iyo dhaqaalaheena iyo horumarka dhaqaalaheena waa inuu inaga xaliyaa, waa inuu arrimaha bulshada inaga xaliyaa, waa in
waxaan social problemkeena haysto dhan xalkiisu waa inuu ka yimaado dhinaca cilmiga. hadduusan ka imanin dhinaca cilmiga luga waaweyn kuma taagna. marka mas-uuliyadda saaran jaamacadda muqdisho way weyn tahay, waa mas-uuliyadda intaa leeg. maanta waxaan maraynaa meel rajo leh. dalkan jaamacadda muqdisho waxay kasoo saartay baa la dhihi karaa, iyo afkaarteedii iyo mashruucaas ballaaran ay ka mid tahay dagaalkii sokeeye. laakiin mid kale ayaa yimid haddana. kii kale sidii looga soo saari lahaana waxaa la rabaa inay ka fikirto. dagaal kalea yimid oo kii sokeeye aan ahayn, oo dagaal nabadiid ah, oo dagaal diimeed ah, oo diintii oo si xun loo fahmo oo fikri ah oo aada u qaab daran baa yimid. marka oo qarqarxaya. marka dagaalkaas sidii loo xalin lahaana jaamacadda muqdisho waa uga fadhina. annaga xukuumadda soomaaliyeed go-aan waxay ku qaadatay oo ay aragtay dalkan inuusan dhaqaaq lahayn, ousan dhaqaaqi karin haddaan amniga wax laga qaban. marka waxaa priority number 1 noo noqday oo qasab nagu noqotay inaan dhahno waa amni, inaan dagaal galno. dagaal buu dalka ku jiraa. waxaan dadka soomaaliyeed iyo jaamacadda muqdisho kow ka tahay, iyo dhalinyaradeeda iyo aqoon-yahanadeedu ka codsanaynaa in dagaalkaas la berber istaago. dowladda iyo hay-adaha ka shaqeynaya oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ugu horeeyaan. guulo la taaban kara ayay xaqiijinayaan. waana is xoreyn karnaa. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.